intii rabtay inay xafladda caawa ka soo qayb gasho sidii horeba ay caadada ay u ahaan jirtay xafladdii caawa halkaasay ku dhantahay back to home wallahi billahi wa ta'ala waxaan u maleynaa caawa inay ugu dambeynayso waddanka Jarmalka qof kale oo fanaan in uu imaado oo xaflad oo ka dhigto xafladan saane wuxuu maatay walaalkayga Suldaan Seeraar waxaan adduunyada baa la yidhi ninkii nool oo baa la yidhi adduunyada ninkii nool oo maxaa aragti ku laaban ma maanta faham burush doonaya inuu Jarmal wax ka sheego ma isagoo Switzerland ku nool oo noloshan ogay ku nool oo baan gurankiisa aan hayo ayuu intuu meel soo fadhiisto Jarmal doon waa Jarmal cid u baahan yahay ma jirto afartan inay rabashka wada ayaa afartan inay rasaqraaminta waa dadkii negatifyada Switzerland iyo laga soo siiyay Sweden ma fahmaysaa Jarmal dad shaqaysto wax qabsada baa ku nool ma fahanday Jarmal hooyooyin sharaf leh baa ku nool anagoo miidhan baa ku nool ma fahanday waxa yacnihi limit kamaanta ku gaarsiin horta waan ka xumahay waa naagaha jooga Jarmal yacnihi ka daba naageeneed gaariga ku wadato ayaa maanta yacni heerka ku gaarsiin adoo hadasho Jarmal wax ka sheegto laakiinse tiisa ma daryeela tu kala ku daray baa leeyahay Switzerland bad ku nooshahay ma fahanday Switzerland aba ku noolaatide Switzerland xafladu dambeysay ka dhacday timir waan yarayd wariya waxaan ku sheegayay marwaan yaratiisi wixii ka dhacay wada gudmidiya la isku galiyay ma fahanday maalin burujo wax runta ku sheegay wad weyday wax umada ka fadhiisiibad weyday ma fahmaysaa waqtiga xaflad ku aadi lahayd ma taagnid ma fahantay caruurahaagi raadi ma fahantay ha 17 jir ha iska soo qaadin maxaa 17 jir dubaad isku celinaysaa wana anaga nin Mareykan jooga amba nin Canada jooga waxaan naga soo sheego laakiin adoo Switzerland noloshad ku nooshaan ogahay inaad maanta halka soo fadhiisato ilaa 18 baan ku ogaa heerada xafladii duusan daf ka dhacday naagaha Jarmal jooga bari ma laha naagaha Jarmal jooga inta xidhan career naagaha Jarmal